kulan waxaan wanaagsan ilaantii madaawadayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dalka Itoobiya qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa kamid ah dawladda Eritrea oo si weyn uga hor imaatay wada hadallada u dhaxeeya dawladda federaalka Itoobiya iyo TPLF dhinaca kalena aad uga soo horjeedo in labada dhinac ay ka heshiiyaan xaaladda colaadeed ee ka aloosan waqooyiga dalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa deegaanada ku amray in ay keenaan tiro ciidan oo ka badan 25,000 kuwaas oo lagu horgeyn doono fallaagada TPLF kadib markii ciidamada militariga Itoobiya oo garabsanaya kuwa dalka Eritrea ay ku fashilmeen dagaalka dhinaca kalena hog iyo halaag halkaasi uu ka soo gaadhay. madaxweynaha dalka Eritrea ayaa la kulmaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya ciidanka militariga iyo shacabka dalka Eritrea kadib maalmo ka hor markuu ku baaqay in ay soo xaadiriyaan saraakiishii hore ee shaqada ka tagtay dhinaca kalena qaadatay retirementiga taasoo u muuqata in Eritrea ay ku jabtay dagaalka ay kula jirta TPLF dhinaca kalena uu doonayo in ciidamo cusub iyo shacabka dalkaasi uu ku xaabeeyo dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya. shacabka Eritreanka ayaana isweydiinaya sababta keenaysa arrimahaasi iyo danta ugu jirto afgambi iyo xaalad cakiran ayaa halkaasi ka taagan. dawlad deegaanka Soomaalidana magaalada Jigjiga waxaa ka taagan khilaaf aad u xoogan oo u dhaxeeya xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida ururada siyaasadda iyo bulshada rayidka ee deegaanka Soomaalida. maalin ka hor unbay ahayd markii beesha Jidwaaq ay ku dhawaaqday in xukunka ay ka tuuri doonto Mustafa Cagshir dhinaca kalena ay beelaha Soomaaliyeed ugu baaqday in ay u qaban doonto shirweyne qaran oo lagaga tashanaya xaaladda dawlad deegaanka Soomaalida. arrintaana waxaa dabada ka riixayo madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Barwaaqo Aadan Faarax Axmed Shide iyo sidoo kale wasiirka shaqada laga ceediyay Cabdiraxmaan Ciid Daahir, balse ururka ONLF oo Mustafa Cagshir uu ku haystay beegsi iyo sidoo kale bahdilaad ayaa hadda u muuqda in nidaam qoys iyo qabiilnimo uu doonayo inuu ku difaaco kursiga Mustafa Maxamed Cumar. xubnaha ururka ONLF kaadirka golaha dhexe iyo gudida fulinta ayaana ku kala qaybsan la kulanka xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida iyo in Mustafa xilligan lagu difaaco kursiga uu ku fadhiyo xilli bulshada Soomaaliyeed ay si weyn uga soo horjeedo dhinaca kalena uu xidhiidh la leeyahay qoomiyadda Amxaarada halka qoomiyadda Canfarta oo shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka liyu booliska xasuuqdayna aan wax jawaab ilaa hadda laga bixinin halka dhul Soomaaliyeedna loo gacan galiyay. ururka ONLF waa maxay danta xilligan ugu jirta in Mustafa Cagshir uu kula heshiiyo qol mugdi ah oo aysan ka tashanin inta badan golaha dhexe iyo gudida fulinta. warbixintan ayaan idinku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan warkeena daawadayaal. waxaa stuudiyaha igula sugan saaxiibkay Santago inta badan indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya, dagaalada ka socda waqooyiga dalkaasi iyo sidoo kale xaaladda ka taagan magaalada Jigjiga. Santago soo dhawow bal dulmar waxaad naga siisaa xaaladihii ugu dambeeyay dagaalada ka socda gobolka Wallo, Walqayd, Waqooyi, Raaya, xuduudda dalka Eritrea iyo gobolka Tigreega deegaanka Canfarta iyo sidoo kale TPLF guulaha ay maanta ka sheegatay iyo ciidamada ay sheegtay inay qabatay. aad iyo aad baad u mahadsan tahay ummadda Soomaaliyeedna waa salaamaynaa. dagaaladii ugu dambeeyay waxay inta badan ka socdeen xuduudda Eritrea iyo u dhaxaysa gobolka Tigreega halkaasi oo ciidamada Itoobiyaanka iyo sidoo kale ciidamada Eritrea oo iskarabsanaya ay dagaal xoogan kula jireen kooxda Tigreega ama ciidamada TPLF. ciidamada TPLF waxay sheegeen inay guulo waaweyn ka gaadheen walow ay jiraan duqeymo xoogan oo ciidamada cirka Eritrea iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya ee cirka ay oo iskaashanaya ay ka fuliyeen magaalooyin waaweyn oo ka tirsan maamulka Tigreega. dhinaca kaleeto dawladdu waxay iyaga naftirkoodu sheegeen inay gebi ahaanba jabiyeen, balse waxaa isweydiin mudan ninka la yidhaahdo Faahiyow in dawladda federaalku ay maamul goboleedyada amar ku siisay in 35,000 oo askari oo ciidamada new booliska dawlad deegaanadu ay lagu soo daadgureeyo furimaha hore ee dagaalka, iyadoo la sheegayo in dawlad deegaan walba laga codsaday 7,000 oo askari oo micnaheedu ay tahay la doonayo inay ka qayb qaataan dagaalka waqooyiga dalka Itoobiya. marka taasi ayaana been ka dhigaysa sheegashada dawladda federaalku ay sheegaysa inay guulo waaweyn ka gaadhay ayna jabisay ciidamadii Tigreega ee dagaalada ay kula jireen kana socday dagaalada deegaanada Axmaarada iyo Canfarta iyo sidoo kale xuduudda Eritrea iyo Tigreega u dhaxaysa. dhinacaasi markaan ka imaano dhinacan kale dawladda Eritrea ayaa iyadana culays weyn dareentay kadib jabkii la gaarsiiyay ciidamadeeda oo la sheegay in dagaaladii ugu dambeeyay asbuucii la soo dhaafay ay Tigreegu ay jab iyo halaag u geysteen, isla markaana oo fawaarkii uu amar ku siiyay saraakiishii hore ee shaqa fadhiisiga ama howlgabka ahayd in ay ka soo xaadiraan furimaha hore ee dagaalka iska soo xaadiriyaan iyo goobaha ciidamadu ay ku sugan yihiin. taasi ayaana culays weyn iyadana fawaarka saaraysa oo micnaheedu ay tahay in ciidamadaasi
oo muddo baritay ahaa in ay hamigooda uu galay inay kursiga kala wareegaan oo Fawarki oo muddo dheer xilka haystay isla markaana qof aad u adag oo xaalad military ahaan ku haystay xukunka dalka Eritrea isla markaana aysan ka dhicin doorasho loo dhan yahay dhinaca kale to dawladda Eritrea waxay iyadana culays weyn saaraysaa wada hadallada Tigreega iyo dawladda federaalka u dhaxeeya oo iyadu la filahaya ama Etoobiyaanku ay si weyn isha ugu hayeen oo doonayaan intooda badan in is afgarad laga gaaro colaadan dhowrka sano qaadatay ka socota gudaha dalka Ethiopia iyo xaaladda cakran ee dalka Ethiopia iyo umana muuqato in ay labada dhinacba ay heshiis ka gaari karaan maadaama ay jirto faragelin weyn oo dalka Eritrea iyo sidoo kale dawlado kale taba ay maaragtay ay faragelin weyn ku hayaan wada hadallada dhexdeeda ama saameyn weynba ay ku leeyihiin inta badan wada hadallada intii ay socdeen afaahiyo waxaa la isla soo qaaday oo Tigreegu ay codsadeen in horta marinka maaragtay gargaarka bini'aadanimada la furo la soo celiyo korontada la soo celiyo adeegyada asaasiga oo ay ka mid tahay telefoonka la soo celiyo iyadana la furo shuruud la'aan iyadana xabad joojin aan la joojiyo maartay lagu dhawaaqo ciidamada Eritrea oo ku sugan gudaha dalka deegaanka Tigreega dib loogu celiyo wadankooda gabi ahaanba deegaanka Tigreega laga baxo goboladan Waqooyi iyo sidoo kale Walqayd iyada naftirkeeda gacanta ciidamada Tigreega lagu soo celiyo oo lagu wareejiyo waxyaabaha marka intaas oo dhan dawladda federaalku kama aysan garaabin waxayna sheegtay adeega asaasiga inaan la furi karin ilaa iyo TPLF ay xabad joojin degdegana ku dhawaaqdo isla markaana ay hub maartay ciidankooda hubka dhigis lagu sameeyo in aysan intaaba qaadi karin ay dawladda federaalka iyadana taagan tahay dhinaca kale waxaa jira iyadana dagaalo xoogan oo goboladani aan soo sheegnay Waqooyi iyo sidoo kale gobolka Walqayd iyo sidoo kale gobolka Wallo maalmihii ugu dambeeyay iyadana ka socday walow dagaalku uu sidii hore uusan u soconin moodid labada dhinacba inay kala daaleen oo dagaalka ay jab weyn uu ka soo gaaray si goosgoosa ayay maaragtay dagaalo goosgoosa ayaa ka socday deegaanadaasi TPLF iyada dhinaceeda guulo ayay mar walba soo bandhigtaa balse dhinaca dawladda iyada naftirkeeda waxay sheegtay in gabi ahaanba ay cagta mariyeen oo talisiyadii TPLF cagta la mariyay oo ciidamada TPLF la wiiqay labada dhinacba sheegashooyin ayaa jira balse xaqiiqo dhab ah looma hayo cidda ku guuleysatay dagaaladii 24 saac ee ugu dambeeyay ka dhacay gudaha goboladaasi Santiago warar soo baxaya waxay sheegayaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed in uu deegaanada amar ku siiyay in ay keenaan in ka badan 35,000 oo askari oo liyu boolisiyada dawlad deegaanada ah kadib markii ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ay ku fashilmeen furimaha dagaalka dhinaca kalena jab xoogan uu soo gaaray haddaba xilli ciidamada Ethiopia ee qalabka ugu badnaa saadkii iyo sidoo kale baabuurta ugu badnaa watay ay ku fashilmeen dagaalka ciidamadan liyu booliska ee qoryaha AK47 iyo BKM-ka kaliya wato maxay ku soo kordhin karaan furimaha hore ee dagaalka oo natiijo faahiyo waxba kuma soo kordhin karaan ayaa la dhihi karaa su'aasha oo kooban holaca iyo waxa weeye ololka unbay kordhinayaan waa un xaabo dab lagu shubay unbay noqon doonaan maadaama ciidamadii Afrika libaxa Afrika loo yaqaanay isla markaana qalabaysnaa tababarka heerka sare haystay dagaalka xeeladiisa yaqaanay ee loo tababaray ay guul weyn ka kaari waayeen oo aan ognahay taliskii 11aad in taliyihii iyo ciidamadiisa oo dhanba ay isdhiibeen oo Tigreega ay isku dhiibeen oo la qabtay iyagoo xabada ridaya la qabtay kuwan dawladda laga keenayo oo tababarkooda uu hooseeyo oo qoryaha ay wataan iyo hubka ay ku labsan yihiin la garanayo oo qoryaha waaweyn sida loo ridaba aysan garanaynin dagaal xeeladii aysan garanaynin wax weyn kama kordhinayaan waxay bicinaheeda tahay in culays weyn la saaro oo lagu yara qabjabiyo ciidamada Tigreega oo looga maaragtay warbaahinta la tusiyay ciidamo badan oo dowlad deegaanada ka socda ay imaadeen oo furmaha hore dagaalka ay imaadeen waa intaas waa xeelad ciidan un baa laga leeyahay mooyane wax weyn oo natiijo oo ciidamada New Police ay soo kordhinayaan ma jiro Santiago markaan ka nimaadno ciidamada liyu booliska ee la codsaday dawlad deegaanka Soomaalida waxaan ognahay in ay joogaan kumanaan ka tirsan ciidanka liyu booliska dawlad deegaanka Soomaalida halka aan ognahay sidoo kale in canfartu ay xasuuqday shacab Soomaaliyeed dhinaca kalena wali ay gacanta ku haysa ciidamada liyu boolis oo ay ka qabsadeen furimihii dagaalka al-shabaab gees ayay ka soo weeraraysaa xaalad kacsanaan iyo waxa weeye siyaasad iska soo horjeeda ayaa ka taagan ma la oran karaa ciidamada liyu booliska dawlad deegaanka Soomaalida xilligani ma yeeli doonaan in ay ka qayb galaan furimaha hore ee dagaalka iyadoon ognahay in taliya daahir deex oo kamid ahaa saraakiisha ugu sarreeyay ciidamada liyu booliska uu hadda ka hor xilkiisa iskaga casilay kadib markii lagu yiri ciidamada furimaha geeya isagana uu diiday maxaa laga filan karaa saraakiisha ciidamada liyu booliska iyo ciidanka caadiga ah
horta aad baad u mahadsan tahay sidaad og tahayba taliyaasha ciidamada new booliska isku shaandhayn ayaa lagu sameeyey kadib markii saraakiil sarsare ay ka hor imaadeen ciidamada loo qaadayo deegaanka axmaarada oo asbuucyo ka horba maaragtay soo shacbaxday in madaxweyne Mustafa Cagjar uu doonayo in ciidamada new booliska dowladda deegaanka Soomaalida uu ku difaaco deegaanka axmaarada oo intiisa badan gacanta ka baxaya xilligaasi saraakiishii sidaas sheegtayba xilligaasi iscashayn waxaa ka mid ah taliye daahir deex ayaa ka mid ahaa oo gabi ahaanba xilkiisa iska casilay kadibna lagu qanciyay in xaaladda uu dejiyo saraakiisha kaleetana uusan la wadaagin waxa isaga iyo madaxweynaha dhexmaray dhinaca kaleeto cakirnaanta siyaasadeed iyo sidoo kaleeto mas'uuliyiinta ugu sareeya ciidamada new booliska intooda badan arintaasi si weyn ayay maaragtay uga soo horjeedaan oo raalli kamay ahaan waxay og yihiin in lahaanshaha dhuleed iyo sidoo kaleeto isqaqabsiga xukunka ugu sareeya dalka Ethiopia labada qowmiyad ee isku haysta axmaarada iyo Tigreega in aysan dan weyn ugu jirin in ciidamo Soomaaliyeed wiilal Soomaaliyeed lagu laayo oo halkaas ay galaan midda labaad ee meesha ku jirta iyadana waxa weeye ciidamada new booliska qaybo kamid ah ayaa la doonayaa in lagu difaaco deegaanka canfarta oo aan ognahay canfar dhibaatadii ay u geysatay galbeedka gobolka City shacabkii ku dhaqnaa ee reer guraagaha oo mar waliba intay weerar gaadma ah soo weeraraan ay xasuuqayeen dowlad deegaankuna aysan gacan weyn ka geysanin oo aan la difaacin dadkaasi iyadoo marka tabashooyinkaasi iyo dhibabka badan canfarta ay u geysatay la ogyahay dhinaca kalena deegaanka canfarta axmaarada iyo sidoo kaleeto Tigreega waxa u dhaxeeya ee isku dagaalayaan iyadana la ogyahay uu yahay kursiga ugu sareeya wadanka oo Soomaalidu iyo arrimo dhuleedba labadaba way jirtaa in aysan dan weyn ugu jirin wiilasha Soomaaliyeed ee yaryarka ee deegaankooda waxa weeye iyada naftirkooda la daada dhacaya abaaraha iyo sidoo kaleeto colaada kaga imaanaysa dhinaca ururada argagixisada oo aan ognahay bil ka hor deegaanka Afdheer iyo Shabeelle dhibaatadii ay ka geysteen ururada argagixisada ay u taal hawl inta leeg in lagu difaaco qadiyad dhuleed oo axmaaradu ay leedahay waa arin maaragtay ay si weyn mas'uuliyiinta iyo waxgaradka bulshada Soomaaliyeed ay uga hor imaadeen fadeexad weyn ku noqonaysa madaxweyne Mustafa Cagjar ayna si yeeli doonin saraakiisha ugu sareysa ciidamada new booliska malayn mahayo qof dhiig Soomaaliyeed leh in ama sargaal dhiig Soomaaliyeed leh in uu marna ogolaanayo in amxaara lagu difaaco canfar oo dad xasuuqaysayna lagu difaaco dhulkeeda wiilal Soomaaliyeed oo halkaasi uu dhiigooda ku daato oo lagu layo Santiago marka laga yimaado xaaladan ka taagan guud ahaan dalka Ethiopia ciidamadan new booliska ee la dirahayo Santiago waa isla arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida ee xilli Ethiopia ay ka socoto calaamad xooggan oo u dhaxaysa TPLF iyo dowladda federaalka Ethiopia Eritrea ay cabaad ka muujinayso xawaaraha ay ku socoto TPLF amxaaradu la sheegay in 10 kun oo ciidan ay ka dhinteen iyo shacab ay barakaceen ciidamada new booliska la leeyahay waa la dirahayaa Mustafa Cagjar dhul Soomaaliyeed uu ku wareejiyay qoomiyadda canfarta halka amxaaradana uu ka jecel yahay bulshada Soomaaliyeed ururkii oo wanalef ee 30 sano dagaalamahayay dhinaca kalena u taagnaa qadiyada iyo madax banaanida bulshada Soomaaliyeed ee kumanaanka wiil ee halyeeyada ay u geeriyoodeen intaasoo hooyo ay u gablantay maantana waxa weeye dhaawacii iyo gablankii meel walba u isqortay afartii sano ee Mustafa xilka joogaan idhaahdee uu ku eedeynayay inay xiriir la leeyihiin TPLF al-Shabaab onaag sheene iyo ururada xagjirka oo xitaa la yiri waxay xiriir la leeyihiin ururka al-Shabaab maxaa keenay in xilligan onalif ay tiraahdo waxaan la heshiinayaa Mustafa Cagjar mise la oran karaa waxay onalif ka cararaysaa in beesha Jidwaaq oo ku shirtay magaalada Jigjiga sheegtayna in Mustafa ay kursiga ka qaadi doonto shirweynana ugu baaqday bulshada Soomaaliyeed in nidaam qoysnimo iyo heernimo lagu leeshinayo Mustafa Cagjar oo tala ay kursiga aan difaacana la leeyahay damiirkii Soomaalinimo ururkii 30 sano u soo taagna uu ka dhintay aad baad u mahadsantahay horta markaan intaanan u gudagelin ururka iyo isdhiibkiisa waxaa jiray arrimo siyaasadeed iyo sidoo kaleeto mas'uuliyiin iyagu maalmihii ugu dambeeyeyba dabada ka riixaya kacdoon shacab oo la doonaya in laga beero horta gudaha dowlad deegaanka Soomaalida mas'uuliyiin sarsare oo dowladda federaalka ka tirsan ayaa waxaa la sheegay in ay maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanaayeen sidii ay u kicin lahaayeen kacdoon shacab u abuuri lahaayeen oo xilka looga qaadayo madaxweyne Mustafa Cagjar arintaasi markii ay dhacday oo laga weerheray oo Jidwaaq naftirkeeda ay kacday oo shirar odayaasha dhaqanka Jidwaaq iyo sidoo kale ama odayaasha dhaqanka ee gobolka Faafanba ay shirar goosgoos ku qabsadeen magaalada afkana ay furteen ayna sheegeen in gabi ahaanba ay Mustafa Cagjar ka taqalusayaan ururka onalif oo boog iyo sidoo kale tabashooyin iyo marxalad adag soo maray oo aan ognahay in Mustafa Cagjar uu caqabad weyn ku ahaa 4 sano ee xilka joogay uuna ku abuuray ururkooda ama uu fadeexada waaweyn ka gudbiyay oo dowladda federaalka uga
looga gudbiyey ayaa waxaad moodaa in ay haddana miciin bideen ninkii shalayto ku eedeynayay in ay ka tirsan yihiin ururada argagixisada oo run ahaantii faahiyow sidaad ogtahayba haddii lagugu eedeeyo urur argagixiso inaad ka tirsan tahay ay micnaheedu tahay in lagu dilay oo lagu toogtay weliba ay dhaanto in lagu toogtaaba dhaantaba aan dhihi karno in ay miciin bideen oo aad moodid in lagu difaacayo nidaam reernimo maadaama kacdoon soomaali weyna uu kacay oo soomaalida kale ay ogaadeenka aan ahayn ay si weyn uga hor imaadeen Mustafa Cagjar ayaa waxaad moodaa in xubno ka mid ah ururka Onalif ma wada aha ururka Onalif dhamaantood balse xubnihii ugu cadcada intooda badan aad moodid inay iska xaadiriyeen filada magaalada Jigjiga dhinaca kale to mas'uuliyiinta aan kor ku soo sheegnay dawladda federaalka ka tirsan waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda Axmed Shide iyo sidoo kale to gudoomiye ku-xigeenka xisbiga BB Aadan Farax ayaad moodaa in culays weyn saarayaan oo doonayaan in beeshan oo muddaba kursigan ku soo fadhiday in gabi ahaanba laga xanyoobiyo oo kursigu uu noqdo meerta Soomaali weyn u dhaxaysa oo kolba dhinac u wareegta in laga dhigo taasi ayaana maaragtay moodaa in ay garwaaqsadeen xubnahan Onalif oo masiirka ummadda Soomaaliyeed muddo badan u taagnaa isla markaana xoriyada dawlad deegaanka Soomaalida muddo badan u soo dirirahayay naf iyo dhiigba u huray dagaalo badan la soo maray dhibaato baan u soo maray yaad moodaa in ay ku ka gateen qabiilnimo waxaad moodaa marka dawlad deegaanka Soomaalida xaaladiisa faahiyo markan gabi ahaan ku soo koobo xaalad nidaam yara qabiilaysan oo qaab daran in loo kala jaban yahay maad moodaa taasi oo ka dhigaysa ama xaaladda dawlad deegaanka maaragtay dhibaato baan u keeni karta haddii aysan garwaaqsanin waxgaradka iyo aqoon-yahanka dawlad deegaanka Soomaalida oo sidii hore ee dawladnimo iyo nidaamkii dawladnimo aan lagu soo celin Santiago waxaad ogtahay ururka Onalif qaybo ka mid ah in Mustafa horay ay ula heshiiyeen oo haddaba ay wasiirada dawlad deegaanka yihiin xafiis ay ku leeyihiin ururkaasi la kala jabiyay qaybna TPLF al-shabaab onaag sheena iyo sidoo kale waxa weeye ururada xagjirka lagu eedeynayay heshiiskan hadda ay la heshiinayaan muxuu macnaa oo soo kordhinaya midda kale ma la oran karaa waa qorshe lagu sii kala fogeynhayo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dawlad deegaanka Soomaalida horta gabi ahaanba qorshahani madax sare oo dawladda federaalka ayaa dabada ka riixaya qaybtii horena waxba maysan helin oo waxaan ognahay Axmed Yaasiin meesha la geeyay iyo xafiiska la geeyay oo aan ahayn xafiisyada saameynta kule dawlad deegaanka Soomaalida oo wax natiijo ah oo fiican oo ay ka heleen isdhiibistii iyo masiirkii iyo sidoo kale to wixii ay 30 sano ee la soo dhaafay u dagaalamahayeen in ay ku gateen waxaan u qalmin ummadda Soomaaliyeed taageerayaashooda iyo naftoodaba aan u qalmin ay ku gateen kuwa hadda isdhiibahayana waa qorsho ay naftooda waxa weeye iyo sumcad darro u horseedaysa weeye wax darajo ah iyo wax wanaaga oo ay ka dhefiyaan meel qorshaha dawladda federaalka iyo madaxda sarsare ee dawladda federaalka isku ururisay ee aan ahayn qabiiladan hadda maanta ku fadhiya xilka madaxweynenimadana waxa iyagu ka go'an sidii ay Mustafa Cagjar ay kursiga ay meesha u dhaafin lahaayeen ee kursiga loo keeni lahaa qof kale oo Soomaali ah loo keeni lahaa waana ajandaha maanta duqaydani iyo sidoo kale to iyadoo la ogsoon yahayba sida ogtahay faahiyow ay adag tahay shakhsi maaragtay Soomaaliya ama dawlad deegaanka Soomaalidu in uu magaalada Jigjiga intuu istaago uu mowqifkiisa cadeeyo uu dagaal ku baaqo ay adag tahay waxaad ka garan kartaa odayaashan maanta magaalada Jigjiga ama maalmahan shirarka ka waday ee ku baaqaya in Mustafa Cagjar ay madaxtooyada ugu daadan karaan inuu yahay qorshe dawladda federaalku ay la ogtahay oo la isla ogyahay oo silsilad xiriirsana oo odayaashana aan dawlad deegaanku waxba ka qaban karin isla markaana aysan ciidamada new police iyo sidoo kale mas'uul dhinacooda u soo dhaqaaqi kara u jirin marka waa qorshe ka dhan ah Mustafa Cagjar cidda maanta isku dhiibtana waxaa la dhihi karaa waxay ku hongowday oo ay ku dhacday dabin horaan laga soo shaqeeyay oo aysan dib uga bixi doonin kaasina wuxuu ahaa saaxiibkaysan taag oo nala falanqeynaya xaaladihii ugu dambeeyay colaadda dalka Itoobiya khilaafka ka taagan dawlad deegaanka Soomaalida daawadayaal warkeennii fiidnimo inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo intaan ku kulmi doona barnaamijka lamidana waxaan idinkaga tagi doonaa sidaas iyo nabadgelyo